صاحبada nagu qaaliya sida uu fanaanka ka dhawaajiyay ama fanaanka lagu xamanayay ayaantan in uu ka tagay ama dalka Turkiya laakiin uu aga dhigtay ama waqti xaadirkan uu ku nool yahay ama dalka Zambia wararkan soo gaaraya ama wararka xanta ah in uu fanaan Sharma Boy u tagay arrimo u qaas ah oo isiga ku kooban ama dhanka qoyskiisa arrimahaas oo ah dhankaas iyo London dhankaas isiga rabo in wadanka dalka Canada oo dhankaas loo rabo ama qoyskiisa la jeclaadeen ama familkiisa sabab kalifa ama dhanka amnigiisa ama dhanka isaga iyo xaaskiisa in loo diro dhankaas Canada marka sida isiga ay wararkan soo gaarayaan in uu fanaankan oo rabin inuu meeshas ku qabto show ama oo ku tagin dhan faneed ama wax oo fan laakiin uu ku tagay arrimo u qaas ah arrimo amniga dhanka amnigiisa sida fanaankan ayaamahan dambe ama sanadahan dambe ama bilooyinkan dambe sida ogtihiin in uu dhanka amnigiisa ay xaaladiisa 99% ay aad iyo aad u xuntaa sida arrimo badan ay isqabsadeen ama bulsho aad iyo aad u far badan ay iskugu dhaceen bulshadaas oo la wada yaqaano waxyaabaha ay ku kici karaan noloshiisa ama nafsadiisa ay geliyaan qatar markaas waa ugu badan oo 99% ama 100% la dhihi karo in uu rabo in uu wadanka ama dalka Soomaaliya idil oo ka tago oo dhankaas iyo Canada ee qoyskiisa ama familkiisa la jeclaysteen waana wax taageerayaashiisa ama bulshadii reer xamar ama bulsho walba dhanka fankiisa xiiseyso fanaankan qaarna ay ku farxi doonaan qaarna ay ka naxayaan marka waxaan dhihi hadda iyo wax cusub waxa ka dareemi kartaa ama farxadda ka muuqato ama hadda iyo wax cusub qofkii just in oo soo wado heeso cusub ama kilibyo cusub oo ku soo duubi doono dhankaas Zambia markii uu dhameyso arrimihiisa u qaaska ah ama arrimaha uu u tagay arrimaha sida aan ka soo hadalnay in uu arrimo dhankaas iyo London oo ku tagay inuu dhankaas iyo Canada inuu ku sii aado oo rabo oo dhanka iyo Soomaaliya idil ka dhamaado waana just wax walba oo fanaan walba oo markaas soo shacbaxa ama fanaan walba markaas sameeyo magac in uu jecel yahay mar walba uu ka tago ama wadankii hadii uu ku dhibaataysay ama dhanka amnigiisa oo dhibaatooyin fara badan kala kulmo in uu meel nafsadiisa uu ku badbaadiyo ama nafsadiisa ay ku xasilayso ama nafsadiisa ay ku dareemayso farxad baasan in uu joogo sida la wada ogaa markuu uu fanaanka soo baxay heestii wadaniga ahayd ee bulshada Soomaaliyeed ee aad iyo aad ku jecleed ama Soomaalida 100% la dhihi karo heestii ku soo shacbahay ama bulshada ee Soomaaliyeed ee ku wada baratay oo areyada kamid ahayd wadankeena aan joogno ama muuqaalada aan iskaga duubno heesta arey noocaas ayaa kamid ahayd heesta waa ka arki kartaa dhanka iyo YouTube-ka heestas waxay heesii loogu jeclaa ama heesii isaga heesiisa loogu jecel yahay ama dadka fanka xiiseeya ee wada jecel yihiin